iminka marka siyaasadda Soomaaliland la faalaynayo waxa la yiraahdaa hebel muxuu garanayaa way dhimatay hebel muxuu waay aragnimo leeyahay way dhimatay hebel muxuu aqoon leeyahay way dhimatay hebel muxuu qaban karaa way dhimatay waxa isku soo haray siyaasadda danaysiga la yiraahdo waxa raawina lahaa waxba kaba go'aan ruux ku shubay xeerid gudaheed waxa la yiri waxa isku xeeray kooxaha siyaasadda Soomaaliland iyo taliskii iyo madaxtooyadii kooxo dhalinyaro ah oo danahooda gaarka ah ku cabirayo hatta hadduu madaxweynuhu yiraahdo qof tala qabeeno hebel igu yeera waxay oranayaan hebelkaas danaheeni ama la jiiraya dantii halkaas ahayd buu jiiraya ama madaxweynuhu lacag ka qaaday war lacagta ma iyaga iska leeyahay iyaga lacagta ma lahayn umada lacag iska leeyahay ma joogo telefonkiisa oo diro wuu xiran yahay haday doonaan wuu ku diiday oranaya taasna mushkiladii waxay ka dhacday 5 nin ama 6 nin ama 7 nin oo shirayo oo shir gaar intay qabsadaan mu'amaradaynaya madaxtooyadii iyo madaxweynihii siyaasadda qaran oo dabeedna oranayo hebel wuu ku diiday ninkii wax garanayay iyo ninkii aqoon lahaa iyo ninkii waa aragnimo lahaa iyo ninkii dhaqan lahaa iyo ninkii cilmi lahaa iyo ninkii diin lahaa way dhinteen waa laga saaray talada waxa isugu soo haray koox yar oo danaystayaal mashruuc ay heleen u arko qandaraas inta tartan loo galay ay heleen bay u arkaan madaxtooyadii dabeedna qandaraaskaas ilaashanayaan wixii aqoon lahaa way ka cararayaan wixii aragnimo lahaa way ka cararayaan wixii cilmi lahaa way ka cararayaan kii soo doontay isla madaxtooyada tagna wuu ku rafaadaya markuu dhowr maalmood tago cidna waayo cidna la kulmaayo iska tagaya geesta kale siyaasiga oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay xubno uu ugu magac daray isla markaana ugu yeedhay 7+1 inay ku gadaaman yihiin madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland kaagi iyo dawladnimadii ku ciyaaro miyay kula tahay ana waxay la tahay in arrimaha ka digdoonaatay maanta waa cusub tahay dawladdaadu waxay u shaqeysaa sidii dawlad 5 sano 4 sano iyo badh jirtay oo badh kaliya u haray waxaana ka dhigay 7 inan oo kugu xeeran magacooda sheegi maayo waa la wada yaqaanaa waxa la yiraahdaa 7+1 bay rag qaar yiraahdaan 7+1 baa loo yaqaanaa 7 iyo ninkii lagu daray taanu ka lagu darayna garan 7 garan maayo 7+1 kii baa meesha mushkilad baa meesha taalo bal marka waxa weeyaan ragga way aragay bal ku dhow cid ku soo gaari kartaa ma jirtaa la yiraahdo annagu kuma aanan kuma doonayno laakiin dad wanaagsanaataan doonayna oo dad wax wanaagsan qabato wax sharaf la qabato deema waxa sharafta leh umad wax ku leedahay cid walba wax ku leedahay haddaad wax qabato waxa xubbi cid walba qala siyaasadda caynkaasna waxa la yiraahdaa siyaasadda danaysiga ku danaysiga hadda dawladnimada laga dhig wax qof ku danaysto ama wax koox ku danaysato ama wax cid gaar heer gaar ku danaysto siyaasadda way dhimatay siyaasadda danahuna meel ma gaadho wallahi dhaqankaas maanta wuxuu gaamuray dhaqankaas wuxuu bilowday xilligii kulmiye dalka qabsaday ayuu bilowday intii ka horeysay muxuu qofku aqoon leeyahay iyo muxuu waay arag leeyahay daahir riyaal in cigaali la soo jiray imika waxa weeyaan muxuu inoo hayaa hadii mashruuc wadanka la keeno oo maxay ahayd mashruuc wax qabanayaba wakaaladda tusaale biyaha ka soo qaada mashruucan biyaha imika biyo gelinta Hargeysa ka soo qaada biyo gelinta Hargeysa rag waa halkan intay fadhiisteen isku dultoleen doonayo inay qaataan waa 20 milyan 5 aan gelino 15 inaga hay nagu baxdo xisaab caynkaas wadadkii dalkii ma inaas ku ama manadaanba ma la jabaa marka anu waxaan ka hadlayaa maanta oo aan leeyahay siyaasadda danaysiga la yiraahdo ee ay ku mameen ilmo yar oo aan aqoon iyo cilmi iyo aragnimo midna lahayn oo isla ku danaysta siyaasadda iyo guushii iyo dawladnimadii la gaaray idinku ku danaysta taas burbur baa looga dhacayaa waxaan kula dardaarmayaa waxay ahayd madaxweynahana madaxweyne arrimaha hoos u eeg haday ay kula tahay adiga haddaanad maqlin imika maqal siyaasaddii waxay noqotay wax lagu danaysto wax 7 qof wax aan ka badnayn u xiran wax cidii ay 7daas doonaan hadduu doono haddaad qof cilmi leh doonayso 7daas kuma soo daynayaan haddaad qof way aragnimo leh doonayso kuma soo daynayaan haddaad madax dhaqameed doonayso kuma soo daynayaan cidda iyagu doonaan bay ku soo daynayaan sidii qof dhaqankii Siiraayo markuu imika yar la lahaa Siiraayo yar gaboobay bay halkiisa ka miiseeno adigana sidii qof gaboobay bay kula dhaqmayaano aan waxba ogeyno waxa ay soo taraya saluuga iyo walaaca laga muujinayo xukuumadda uu soo dhisay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Qaadir Habane wararka magaalada Hargeysa.